السلام عليكم كسو دوادا برامجك عيارها هوريالك عيارها دونكا qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Robert Lewandowski oo fariin adag u diray kooxda Real Madrid, Chelsea oo shaacisay saxiixa xidiga ay dhawaan ay ka afduubatay kooxda Manchester City ee Marco Cucurella, Mikel Arteta oo soo saaray liiska ciyaartoyda Arsenal ee kulanka caawa, xidigii hore ee kooxaha Chelsea iyo Arsenal ee William oo ku soo laabanaya horyaalka English Premier League, Jimmy Carragher oo saadaaliyay kooxda xilli ciyaareedka dambe ku guuleysan doonta tartanka horyaalka English Premier League. Qodobadaas iyo qodobadii ku soo kordha barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Fadlan haddaad ku cusub tahay barnaamijka subscribe, like, share si asxaab badan u gaaro barnaamijka. aan ku horeyna weeraryahanka reer Poland Robert Lewandowski ayaa fariin culus maanta u diray kadib markii lagu soo bandhigay garoonka Camp Nou isagoo xiran maaliyadda kooxda Barcelona gaar ahaan lambarka 9 oo looga qaaday xidiga Memphis Depay. Laacibkan oo Barcelona ka soo iibsatay Bayer xagaagan isla markaana kooxdiisa ku qasbay inuu ku biiro kooxda Barcelona ayaa maanta lagu soo bandhigay garoonka Camp Nou ay ku ciyaarto kooxda Barcelona. soo bandhigistiisa garoonka Camp Nou waxaa xaadirtay in ka badan 59,000 oo taageerayaal ah. Robert Lewandowski ayaa fariin adag u diray kooxda Real Madrid isagoo sheegay in uu soo bandhigi doono qaab ciyaareed fiican. Xidigan ayaa dhawaan kula midoobay kooxdiisa cusub ee Barcelona dalka Mareykanka kadib markii kooxda halkaasi ay joogtay, waxayna kooxda halkaasi ay isku diyaarinaysaa xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka liigaha dalka Spain. Lewandowski ayaa maanta lagu soo bandhigay garoonka Camp Nou ay ku ciyaarto kooxda Barcelona. Kooxda Chelsea ayaa shaacisay saxiixa xidig ay dhawaan ka afduubatay kooxda Manchester City ee Marco Cucurella. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa si rasmi ah u shaacisay in ay saxiixa xidiga daafaca bidix ee reer Spain ee Marco Cucurella ay kala soo wareegtay kooxda Brighton. Saxiixa xidigan ay ku garaaceen kooxda Manchester City oo si weyn u doonaysay xidigana. qoraal kooban uu wehelinayo sawirka Marco Cucurella ayaa Chelsea soo dhigtay barteeda bulshada ee Twitter-ka waxayna ku sheegeen heshiiska laacibkan la dhameystiray oo haatan laga bilaabo uu ka tirsan yahay ciyaartoyda kooxda Chelsea. laacibkan oo tijaabada caafimaadka maray ayaa muuqaal laga soo duubay isagoo xiran garanka kooxdiisa cusub ee Chelsea. waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo ciyaartoyda Chelsea waxaana uu fariin u diray taageerayaalka kooxdiisa. 24 sano jirkan kooxda Chelsea ka soo bixisay 52 milyan oo geni ayaa waxaa qoraalka Blues ku daawacday barteeda bulshada ayuu ku yiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku biiro kooxda Chelsea waxaana uu sheegay in ciyaartoyda kooxda Chelsea uu hore ula qabsan doono. Marco Cucurella ayaa bartilmaameed u ahaa kooxda Manchester City inkastoo Manchester City ay diiday lacaga xidigan ay ku doonaysay kooxdiisa ee Brighton. Tobra kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa shaaciyay liiska ciyaartoyda kooxda Arsenal ee kulanka Crystal Palace. Tobra kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa shaaciyay liiska ciyaartoyda uu kaga hortagi doono kooxda ku ciyaaraysa garoonka Selhurst ee Crystal Palace waxayna doonayaan in kulankan ay ka badiyaan. xidiga Mikel Arteta ee u soo xishtay kulankan ayaa waxaa la sheegay in ay yihiin wajiyada cusub ee kooxda dhawaan ay la soo wareegtay. Mikel Arteta waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa inta badan ay diyaarsan yihiin waxaana uu sheegay in kulanka caawa ay ku soo bilaaban doonaan ciyaartoyda cusub ee kooxda dhawaan ay la soo wareegtay. Arsenal ayaa dhawaan la soo wareegtay xidiga gaaraya ilaa 5 xidig waxaana ka mid ah xidiga Gabriel Jesus, Marquinhos, Fabio Vieira, Alexander Zinchenko iyo xidiga Matt Turner ayaa dhamaantooda la sheegay in ay diyaar u yihiin kulanka caawa kooxdooda ay la ciyaari doonto kooxda Crystal Palace. Smith Rowe ayaa la sheegay inuu ku maqnaan doono dhaawac dhanka muruqa inkastoo wararka qaar ay sheegeen in xidigan uu taam u yahay kulanka kooxdiisa caawa ay la ciyaari doonto kooxda Crystal Palace. Mikel Arteta ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa dhammaan ay taam yihiin kulanka caawa.
kabtanka cusub ee kooxda Arsenal Martin Odegaard ayaa kulankiisii koowaad ee Premier League ka soo muuqan doona kulankana isagoo calaamada kabtanimada u xidhan doona kooxda Arsenal. xidigii hore kooxaha Chelsea iyo Arsenal ee William ayaa dib ugu soo laabanaya horyaalka English Premier League xagaagana sida ay sheegayaan warar kala duwan oo maanta ay daawacayaan wargeysyada Ingiriiska, waxaana heshiis u saxiixi doona mid ka mid ah kooxaha Premier League 33 sano jirkan oo xagaagii hore ka tagay Emirates Stadium kadib markii waqti kooban uu ciyaaray kooxda Arsenal oo aan si fiican ula jaan qaadin. ciyaartoyda Arsenal ayaa wax yar kadib waxa uu codsaday in xidigan fasax lagu sii daayo oo la burburiyo heshiiska uu kula jiray kooxda Arsenal. diiwaanka Arsenal ay ugu jiraan 25 kulan oo kaliya oo Premier League oo sabtay kooxdiisa isagoo mushaar ahaan u qaadanayay 300 oo kun toddobaadkii. muddo uu keedka ku jiray kadib William ayaa ogolaaday inuu burburiyo heshiiska Arsenal si uu bilaash uga wareego koox ka dhisan dalka Brazil, waxaana la sheegay in kooxdaasi uu saftay 35 kulan isagoona u dhaliyay 1 gool. sidoo kale waxaa la sheegay inuu caawin ka noqday 4 kale. William ayaa hadda wadahadalo kula jira kooxda Premier League dhawaan u soo dalaacday ee Fulham, taasi oo haddii heshiis buuxa ay la gaarto xidigan uu ku soo laaban doono horyaalka English Premier League. William ayaa lagu xasuustaa qaab ciyaareedkii uu ku soo bandhigi jiray kooxda Chelsea, inkastoo markii dambe kooxda uu diiday inuu sii joogo oo ka doortay kooxda. waqti yar kadib xidiga ayaa isaga tagay kooxda Arsenal oo dib ugu laabtay dalkiisii hooyo. Jamie Carragher ayaa saadaaliyay kooxaha ku guuleysan doona horyaalka English Premier League xilli ciyaareedka Manchester City iyo Liverpool. qabiirka kubadda cagta England ahna daaficii hore ee kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa saadaal ka dhiibtay horyaalka English Premier League xilli ciyaareedkiisa 3aad oo caawa la daafuri doono. Jamie Carragher ayaa sheegay in kooxdiisa hore ee horyaalka English Premier League ay kaga guuleysan karto kooxda Manchester City kadib 5 xilli ciyaareed ugu dambeysay 4 ka mid ay ku guuleysteen horyaalka English Premier League. Virgil van Dijk ayaa xilli ciyaareedkii 2020 ilaa 2021 dhaawac halis ah ku seegay intii badneed kulamada kooxdiisa, waxaana sidoo kale xidiga muhiim u ahaa xidigan, waxayna xilli ciyaareedkaasi 17 dhibcood ay ka dambeeyeen guuleystayaasha Premier League ee Manchester City. 31 sano jirkaasi ayaa xilli ciyaareedkii hore soo laabtay, balse qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa ku soo laabtay kaliya ka hor bilaawashada sanadka cusba ee 2022, iyadoo taasi wixii ka dambeeyay Liverpool si weyn uga soo kabatay ugu dambeynna 1 dhibic ka dambeysay ku guuleystayaasha horyaalka ee Manchester City. Carragher ayaa aaminsan in kooxda gobolka Merseyside ka dhisan ay ku guuleysan doonto horyaalka English Premier League haddii uu taam ahaado xidiga Virgil van Dijk ee xilli ciyaareedkan. Jamie Carragher oo la weydiiyay su'aal ahayd kooxda ku guuleysan doonta xilli ciyaareedkan, waxa uu sheegay in kooxdiisa hore ee Liverpool ay ku guuleysan doonto horyaalka English Premier League, waxaana uu sheegay in kooxdiisa ay ku qaadi doonto dhibco gaaraya 90 dhibcood. guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka.